rabaa in dadka hoggaanka ahi ay ka shaqeeyaan midnimada iyo walaalnimada ummadda tan ay ka shaqeeyaan oo waxaan ognahay nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam markii uu ka soo hijrooday magaalada Maka oo uu yimi magaalada Madiina dadkii soo hijrooday iyo kuwii ansaarta ahaa ee soo dhaweeyay loogu yimi wuu walaalayay wuxuuna mideeyay dhexdoodii ilaa ay sameeyaan ilaahay uu ku tilmaamo nimankii ansaareed wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasaasa iyagoo macluul tabcaan la ah qisada waa wada ognahay ninkii nabiga calayhi salaatu wasalaam u yimi ee guriyihiisa wuxuu ga waayay oo yiri yaa iga marti sooraya ee ninka uu kaxeeyay markii uu gurigiisii geeyay habartii buu la hadlay oo wuxuu yiri xaajiyad maxaa guriga yaala waxay tiri wax badan ma yaalaan wax caruurta ku filan baa ooli kara wax aad u yar baa yaala deetana wuxuu yiri ninka waa maaweelinaya martiga waa martigii nabiga waa maaweelinaya caruurta aadna waxaad samaysaa caruurta waxba cashada hasiin marka ay daalaan oo gataati dhacaan caruurta seexi marka aan martiga nabiga keeno calayhi salaatu wasalaam oo aniga iyo martigu nimaadno oo cashada soo dhigto bahalka fatiilada ama fowniiska dami dabadeetana labadeena halka aan weel maran balqacadaha iyo wixii ku garaacno ha u qaato martigeenu inaynu wax cunayno isaguna sidaa ha ku dhergo sidii baa lagu dhergiyay habeenkii sidii buu ku seexday arooryadii baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu wixii ku ogaaday dabadeetana quraankaas soo degay ilaahay uu leeyahay iyaga aad u macaluulsan oo aad u gaajaysan oo caydhima halkii ugu dambeysay ay walaalahoodu sameynayaan inay u dooraan oo iyaga ay qadaan waa waxyaabaha maanta la rabo in ummadda dhexdeeda lagaga shaqeeyo in wax la isu dooro oo wax la isu quuro oo hantida la isu quuro oo wixii kale la hayo la isu quuro laakiin haddii waxba la isu quuri waayo de waxay noqonaysaa inay ummadda isnacdo waxay noqonaysaa in la iscaayo waxay noqonaysaa in la isxasdo marka dadka hogaamiyayaasha ah ama ha noqdaan kuwa dawladeed ama ha noqdaan kuwa dhaqan waxyaabaha laga rabo wax weeye inay ka shaqeeyaan ummadda sidii ay walaal lahaayeen ay u gaari lahaayeen inay sameeyaan isaar marka laga hadlayo dadka muslimiinta xiriirka ka dhaxayna wax la yiraahdaa halka ugu sareysa wax weeye isaar inaad walaalka wax u doortid oo wax aad haysatid tirada wallahi walaalkii ku fiican yihiin halka ugu liidata ugu hoosaysaana ee la rabo qofna inaanu ka hoos marina wax weeye salaamatu sadr laabtaada inaad qof muslima waxba ugu hayn oo cuqdadii aanay kugu jirin cuqdada marka waxyaabihii keenaya waa in la dagaalamaa wax kamida marka in wax la isu quuro wax kamida in dadka midnimadooda laga shaqeeyo wax kamida in cadaalad la helo oo loo cadaalad falo waxyaabaha laga rabo hogaanka wax kamida inay sameeyaan isbedelada dunida ka dhaca isbedelada inay la qabsadaan inay la jaan qaadaan isbedelada dhacaya hadda midalan dawladaha dunida isbedel baa ka dhacay hadda intuu Trump qabsaday isbedel baa dhacay dunida Soomaa wax badan baa isbedelay wax la rabaa madaxda dawladaheena inay isbedelka la jaan qaadaan oo ay uga faa'iideystaan dhinaca fiican laakiin aanay taagnaan halkani sidaa bay ahaan jirtay iyo waagi hore sidaas ay ahaan jirtay waayo wax maanta ku haboon baan shalay haboonayn arin shalay haboona baan maanta haboonayn dadka manaahijta ka hadla waxay soo qaataan qisa maaragtay ay yiraahdaan qoys magaalada deganaa tuulada deganaa maxaysato xeeb ku yaala ayaa waxay sameyn jireen waxay ahayn kalluunley markuu odaygu soo shaqeeyo oo kalluunka keeno baa ooridu madaxa ka goysaa dabadeetana waa shiisha maalmaha kamid ah markii gabadheedii ay hanaqaad noqotay way u yidho waxay tiri heblaayay hooyo kalluunka madaxa ka goy dabadeetana shiil gabadhii su'aal bay ku soo celisay waxay tiri hooyo maxaan kalluunka madaxa uga goynayaa habartu waxay tiri kalluunka madaxa ka goy markii la isku celceliyay waxay tiri gabadha akhir sabaan baa tahay hooyaday bay oran jirtay marka kalluunka madaxa ka goyo shiilo saasana baa uga goyn jiray hooyada ay noo geeyay hooyadii baa la aaday hooyadii waxay tiri hada waa dunia akhir sabaane anigana hooyaday baa sida ay oran jirtay nasiib wanaag hooyadii kale waa loo soo hooyadii kale loo tagay warkii baa loo sheegay deetana intay la yaabtay waxay tiri oo wali kalluunka madaxa miyaad ka goysaa anaga waaji digsiga iyaga yaraayo aan wada qaadayna saasaan madaxa uga goynayay maxaan uga jeedaa xaaladii xilli ku haboonay
xilliga reerkaasi duruuftooda ay wax ku binayeen maanta wax laga yaabaa duruuftu inaanay tii ahayn sidii awowha wax u xalilay ama aabaha uu wax u xalilay wax laga yaabaa inaanay maanta shaqaynayn tusaalaha ugu fudud aan soo qaadan karno wax weeye dadkii noolaa 70 sanadood ka hor ee soo gaaray odayaashii xilliga marka golaha la yimaado qof ama laba hadli jiray oo waliba hadalka laga duciyay oo la yiri war hebelow dheh markaas oran maayo hebelow dheh waa kii ninkii Soomaaliga ahaa yiri saddex baa shir isaga daayay ka hadalkii waxaan isaga daayay uu yiri ninka dooroon oo ku dira hebelow dheh ku yiraahda isaga ka kasiis badan isaga ka aragti fog laakiin wuxuu doonayaa in adiga aad tiraadi qodobka labaad waxaan isaga daayay buu yiri nin doqona oo ku dura markaad adigu ismatiisho oo hadalkii intii tabarta hagaajiso marka laga baxo mid doqon waligii hadlin isagu waa horaya muxuu ku hadlay muusidaa yiraahdo waa wax loola jeedaa waxana looga jeedaa baaragta waxa kale oo isaga daayay buu yiri in badan oo ku daya dadkii oo dhan ku soo eegay aad lagu wada jeedaa marka dadku hadalka odayaashu ma wada oran jirin mid iyo laba oran jiray deetana waa inoogu dhantahay inta hebel yiri ama labada oday ay yiraahdeen inoo faataxaya loo oran jiray maanta shir baa la imanaya shir lagu qabtay xigalow waa inaan hadalka cidii lahayd xuquuqdu waa ammaanay aan u tiiriyay baa oday kamid ah odayaashii deegaanka Axmed Saalax Digaalaha naxariistay la yiri istaag wuxuu yiri waxaan isu taagayaa waagii hore magtu qooratiris bay ahaan jirtay hadalka qooratirisa wax laga yaabaa oday wax ku oola oo aad u diiday oo aad hadalka dhaafsiisay inuu yiraahdo ma nimanka hadalka ii diiday maxay siin lahaayeen war muxuu yahay nabadoon ka garabsamay war muxuu yahay suldaan ana marka suldaan baanahay war maxay reer hebel yiraahdeen maxay ahaayeen oo iyadii baa isku koobayay soo maarkayn war wallahi aan urjamiis qaadanayn afar waxaan dhageysanayay in odaya oo maalin hadlaya oo magaalada kamid ah magaalooyinka Soomaaliyeed xiri war wallahi baan u yeerin afar reer hebel inay iga horeyso wallahi aan u yeerin inay afar reer hebel iga horeyso marka wacyi baa isbedelay odayga maanta jooga wax badan baa u yaalo hawla Soomaha wax tusaale fudud sidoo wacyigu isu bedelay wixii maalinta jiray maanta aanay u jirin wax la rabaa inuu qofku wacyi leeyahay oo wax badan uu og yahay oo uu dareemayo wax la rabaa markaynu sameeyo al-musaabara waxyaabo badan baa wuxuu baahan yahay inuu u sabro waxyaabaha muuqda istaraatiijiyadaha aan hadda ka hadlaynay wax laga yaabaa inay jiraan qayb aadan wada gaari karayn hadda aadan gaarayn laakiin dadku ay ka filayaan inaad hadaba ka falcelisid meesha aan hadda u baahnayn inaad ka falcelisid laakiin kaaga baahan in aad waqti siisid oo waqtiga wax ku oola aad ka qabatid miyaanay mudnayn inta tallaabooyinkeeda qaadaysid inaad iska yaraysid media waxyaabaha aan maanta ku talinayo maaragtay yana muuqdo wax kamid ah oo aan kula talinayo dadka madaxda ee Soomaaliyeed madaxda dhaqanka inta badan ma hadal badna laakiin madaxda dawladda ama ha ahaato madaxda dawladda Soomaaliyeed ama ha ahaato madaxda maamul goboleedada waxa haboon waxay leeyihiin inta soo la taliye kuwa siyaasadda kala taliya kuwa dhaqaalaha kala taliya haddana la talintoodu ma muuqato marka uu siyaasadda ka hadlayo wax la rabay kuwii siyaasadda kala talin jiray inay qaabka u hadlayo khidaabka siyaasiga ayagu qoraan iyaga waxaan u idmane laakiin waxay u batay golka fuul markaas wax laga yaabaa in badan oo ku taageersanayd khudbad yar oo aad tiri inay kaga tagaan ama subcadaadi cirka maraysay inay dhulka ku geliso waana waxyaabaha maanta madaxda Soomaaliyeed in badan haysta in khudbadaha ay ubadaha u jeedinayaan inay cid kala tashadaan oo ay cidaasi ka tafatirto cida ka tafartiraysana wax laga rabaa hal muhiim ah waa inaanay dareenkooda iyo jacaylka madaxda aanay ku binayn ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu nooga waramay qisatu suratu saba wuxuu nooga waramay qisadaasi waa qiso cajiiba waxa uu ilaahay tilmaamayaa gabadhii boqorada ahayd markii uu nabi Sulaymaan u diray maaragtay fariinta uu diray maxay tiri war maxaan sameeynaa fariin baa inoo timid maxaan sameeynaa deetana sayqan ciyaan gabadha madaxnimadeeda waxay yiraahdeen nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadiid wal amru ilayk anaga awoodna waa leenahay kartina waa haynaa waa dagaalami karnaa taladaadiga waxa doonto sabay madaxda marka dadka la taliyana wax laga rabaa inaanay muudkooda ka faa'iideysan aanay eegin muxuu jecel yahay laakiin
laakiin wuxuu jecel yahay haddii aanay danta dadka iyo mas'uuliyadda aanay ku jirin dadka la talinayna wartani dantii ma aha adeerow ka daa kuma jirtee qofkii sidaa yiraadana waxa hubaala qofkan ilaa wax qof aqli leh berri ka maalin inuu gaari yoranayo wallahi hadduu doono marka haba xanaaqo laakiin berri ka maalin inuu garanayo kii maxaa la yiraahdaa dhalashu kuugu dhiidiyay nina dhuunu kuugu dhaadhacay kii wax kaga doonayay wax yar kaga doonayay iyo inuu kala garanayo kiis dhabta u sheegay insha Allah ta'ala waxaan ku soo gabagabeynayaa oo aan oran lahaa oo ay dhabtu tahay waxa oo dhan waxay isku soo ururayaan waxayna isku soo ururayaan hadiiskii aan hadda sheegnay qofka mas'uuliyadda haya hadii uu Ilaahay xasuusan yahay ognayahay in aakhira ay ka dambayso wax badan oo sameeyo waa iska deyn laha war cid walba mas'uuliyad haysa mas'uuliyadda ay hayso Ilaahay kaga baqdo hada ogaato maalin ma ka mid ah in la gala xisaabtamayo oo ay xisaabtu dheeraan doonto wassalaamu calaykum wa rahmatullahi